hadlaynaa hartiga halkaa isugu tagay aan hoodada mooyaane wax allaale waxa ay noo qabteen aanan garanayn waxaanu leenahay ilma adeerayaal waad ceebowdeen oo maradii baa idinka dhacday naafo iyo dhaawac baad soo kordhiseen magaalada saa isaga fadhida marka waxaan la hadlaynaa maanta nimankan harti isku sheegaya ee laascaanood ku gurmay ujeedada ay u fadhiyaan laascaanood ma bariis bay u raadiyeen mise hiil harti bay u tageen kulankan ay isugu yimaadeen haweenka magaalada Qardho iyo haweenkii ka soo cararay dagaalada ka aloorsan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee ku nool magaalada Qardho ayaa uga tacsiyadeynayay geeridii ku timi Allah u naxariistee abwaankii weynaa Soomaaliyeed abwaan Jaamac Kadiye oo ku geeriyooday magaalada Laascaanood isla markaasna u geeriyooday duqeymaha Soomaaliland ka geysanaysay magaalada Laascaanood haweenka ayaa allaweyne uga baryay in marxuum Jaamac Kadiye abwaanka uu Rabbi u naxariisto qabrigana u waasiciyo sidoo kale waxay baaq u direen ciidamada ku sugan jiida Laascaanood oo markaas difaacaya magaalada Laascaanood iyo magaalooyinka kale waxayna ugu baaqeen in ciidamku laban dadaaladooda howlgal ay ka wadaan halkaasi isla markaasna ay rabaan inay ku xoreeyaan magaalooyinka SSC وغرين وحالكاسي كهضلي أو كلن كان سوق بقابسي حلبان فيس السعيد علي وكمذا حلبان هذا قلها الدجان كي الدجمة قرنه وحنا حلبان هذا وغرين أي تعسي ودرتي الله نحرستي مرحون جامع كذية وها أبوان سوماليات وحنا ما أنت هلك السجون موحوية إنه أبوان كني الله نحرستي إنه أبوان كني إنه أسمى إنه حسوسين oo ku ah bulshada reer Soomaaliyeed oo dhan u ahaa abwaan Soomaaliyeed ahaa abwaan taariikhda galay ee aan ahayn abwaan qabiil wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed afaraad ka soo maqlana ciidan hebel iyo qabiil hebel oo gurmanaya dhulbahantu waa isku filnaayeen markay kaligood ahaayeen laatag saac waxa maqlana qabiil baa tagay waxa la qaaday hubba la qaaday halkana laga booday harti baanu nahay laascaanood maxay aqladii iyo waxa lagu laayay iyo abwaanadii maxaynu sugaynaa marka waxa la hadlaynaa maanta nimankan harti isku sheegaya ee laascaanood ku gurmay ujeedada ay u fadhiyaan laascaanood ma bariis bay u raadiyeen mise hiil harti bay u tageen mid kalena waa ku dardaarmaya waxa reer laascaanood ee saraakiishooda kula dardaarmaya haweenka ku jira magaalada laascaanood ee raggayaga qaadka u geynaya ee raggayaga qurunka kula jira oo basaaska kula jira hana laga soo saaro sidoo kale dhammaan haweenkii ka soo qayb galay ee madasha ka hadlay ayaa tacsi u diray Allah u naxariistee marxuum Kadiye waxayna baaqada u direen ciidanka SSC ee ku sugan jiida hore ee dagaalka halkan waxaan ka tacsiyadeynaynaa abwaankeygii weynaa ee qaaliga ahaa ee nagu qaaliga ahaa abwaan Jaamac Kadiye cilmi oo sida runtii si fool xun oo aanan qaadan karin loogu dilay gobolka Sool إن لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى نحرست جنة الله كورابيو ما ملك SSC مش كتره وحنو الله لنا تلياش عيدا مده وحنو الله لنا هرتجا هلكا يسقط تجي أن هذا الدم يعني وح الله لو أي نقبتين أنا قرنين وحنو لنا ilma adeerayaal waad ceebowdeen oo maradii baa idinka dhacday naafo iyo dhaawac baad soo kordhiseen magaalada saa isaga fadhidaan waxa laale waxaan idinka haynaa ma jirto geerida Jaamac Kadiye geeri ka xanuun kululina ma jirto waxaanu sheegaynaa wixii hore dhace maalinka maanta inaad guntataan inaad cadawga iska kicisaan inaad dagaalantaan ceeb iyo cayr idinka maqani ma jirto sidan si hala isugu dhaamo hadaase dagaalka gashaan waan idin garab taaganahay annagoo sidna wax kasta saanad haday ahayd iyo haday raashin ahayd iyo haday wax kasta aad nooga baahan tihiin baanu iimaanaynaa aanu ku dhimano geerida diyaar baynuuna ugu dambeyntii waxa hadaladaasi soo afmeeray xildhibaan Faadumo Cabdisalaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Qardho waxa halkan isugu yimid gabdhihii Laascaanood oo ku noolaa magaalada Qardho iyo gabdhihii awal ahaa asalka reer Qardhoodka waxay isugu yimaadeen tacsida adeerkaya abwaanka Soomaaliyeed cabqarigii taariikhdii noolayd Soomaaliya الله جنيه رحمة سي أبوان جامع كذي علمي وحنا لنا الله ونحرسته فدي سفردوسا الله كدقو
nabigiisa Muhammad alayhi salaatu wasalaam allaha ugu bishaareeyo annagana gadaashiisa alla nama fidmeeyo allah noo naxariisto annagu hadaan nahay gabdhihii reer Qardhood anoo ku hadlayo codkayga iyo codka gabdhaha reer Qardhood iyo gabdhaha Puntland oo dhan iyo Soolba waxaanu nahay gabdhihii bilaabay dagaalkaas waxaa noo bilaabay gabdho yar yar oo fahimo quujiye raxmo ay ka mid yihiin halka meesha ay geeyeen baa wali ciidamadii joogaan waxaanu ka xunnahay Gooja Cadde in maalin kasta ka soo dhaco ragayaga lagu laayo wiilashayada aan curan abwaanadayada caaqladayada xaasaskayada isbitaalada beedadka ilaahigay waxaan alle aqoon xishoon darisnimo aqoon loo dulqaadan maayo Abdaasiis Ibrahim